kulanti haboon daawade waa boggeena Facebook ee tixraaca wararka iyo barteena YouTube ee halbeega wararka qodobada wararka ee aanu xilligan idiin heynana waxaa kamid ah diyaaradaha droniska ee dowladda Turkiga oo wali wada beegsiga dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab duqeyn hor leh oo ka dhacday qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe waa uu burburay gaarigii ay la socdeen hubkii ay wateen ayaana isbedelay yaa wax ku noqday duqeyntaas xogta oo dhameystiran ayaanu kula wadaagaynaa qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa daraawiishta Galmudug iyo ciidanka beesha Saleebaan oo muddo kadib dhaqaaqay howlgalkoodii ugu horeeyay ay sameeyeen in muddo ah kadib waxaana ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab baahinteenan ayaad ku daawan doontaan faahfaahinta oo dhameystiran haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo muuqaalka like saaraya una share gareynaya saaxiibada si uu dad badan u gaaro mahadsanid وهاجاك داود ugu horeyntii hadii aynu ku bilowno wararka naga soo gaaray gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in weli dhaqdhaqaaqyo ciidan oo culus ay halkaasi ka socdaan gaar ahaan deegaanka Masaajid Cali Gaduud iyo sidoo kale tuulooyin hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe howlgaladan oo ah kuwa balaaran ayaa waxa iska kaashanaya ciidamada xoogga dalka kuwa deegaanka ee macuusleyda iyo diyaaradaha dagaalka oo duqeymaha dhanka cirka ah ka caawinaya ciidanka wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in duqeymo xoogan oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga ay weli ka soconayaan furimaha dagaalka oo isku hor fadhiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay xaqiijiyeen in mid kamid ah duqeymahaasi lala beegsaday gaari nooca hoomeyda ah oo ay la socdeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab xilli ay marayeen agagaarka deegaanka Xawaadle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka hadlay duqeyntaasi ayaa waxa ay shaaciyeen in lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab balse ma aysan shaacinin tiro rasmi ah iyo magacyada xubnahaasi sidoo kale saraakiishu ma aysan carabaabin dadka duqeynta lagu dilay hadii ay kamid yihiin saraakiil ururka Al-Shabaab ka tirsan dhanka kale ma jiro wali wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab oo ku aadan howlgallada ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka Turkiga ee droniska ee Bayraktar TB2 dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay guulo waaweyn ka sheegatay howlgalka ka socda deegaanka Masaajid Cali Gaduud iyo tuulooyinka hoostaga waxa ay sheegeen in halkaas lagu dilay 22 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaasi oo ku sugnaa garaash iyo guri ay ku shirayeen oo ku yaala halkaasi sida ay ku sheegeen qoraal ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda oo war ka soo saartay duqeymaha iyo dagaalada ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegtay in guulo waaweyn ay gaareen ciidanka dowladda iyo kuwa taageeraya ee sirdoonka dhanka xirka ah iyo duqeymaha ka taageeraya howlgalka koowaad waxaa la fuliyay 22 Oktoobar waxaana lagu beegsaday garaash iyo guri ay ku shirayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab waxaana lagu dilay 22 argagixisada ka tirsan oo ay ku jiraan horjoogayaal oo kamid ah horjooga Cabdullaahi Cali Caraal ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda Soomaaliya sidoo kale waxaa la sheegay in howlgalkii ugu xooganaa uu ka dhacay laguna beegsaday Burcolow oo fariisin weyn u ahayd ururka Al-Shabaab halkaasi oo ay ku sugnaayeen kooxda jabhadda oo uu hogaaminayay Muscab Sane iyo horjoogayaal kale oo qorsheynayay weerar ka dhan ah ciidanka huwanta ah isgarabsanaya ugu dambeyntii dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ugu baaqday dhalinyarada weli ku sii jira kooxda Al-Shabaab inay iska soo dhiibaan si naftooda ay uga badbaadsadaan howlgalkan wadajirka ah ee lagu beegsanayo fariisimaha iyo sidoo kale dagaalamayaasha kooxdan halka ay ku sugan yihiin deegaanka Masaajid Cali Gaduud oo ahaa deegaankii ugu dambeeyay oo ciidanka dowladdu kala wareegeen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa laga soo warinayaa khasaare xoogan iyadoo uu jiro khasaare labada dhinac ah dowladdu kama aysan hadlin khasaaraha soo gaaray dhanka ciidamada huwanta ah isgarabsanaya balse waxa ay sheegeen kaliya in howlgalladii ugu dambeeyay lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab duqeyntii ugu dambeysay ee ka dhacday duleedka deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaan la soo warinin tiro rasmi ah oo halkaasi ku geeriyootay iyadoo la arkayay sawirro laga soo qaaday goobta duqeynta ee ka dhacday ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo markaa xaqiijinaya in duqeynta lala beegsaday xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyagoo soo bandhigay qoryihii ay wateen iyo sidoo kale saanad militari qaybaha kala duwan ee ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya sida nabad sugidda iyo militariga Soomaaliya oo kaashanaya kuwa daraawiishta Galmudug iyo sidoo kale ciidanka beesha Saleebaan ayaa waxa ay qaadeen weerar ka dhan ah dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ciidamada daraawiishta Galmudug kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa waxa ay si wadajir ah howlgal uga sameeyeen qaybo kamid ah gobolka Galgaduud ee dhaca bartamaha Soomaaliya howlgalka oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxa ay ciidamadu kula wareegeen deegaanka Qaayib oo hoostaga magaalada Cadaado halkaasi oo ay ku sugnaayeen maalmihii la soo dhaafay xubno ka tirsan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab
saraakiisha hogaaminaysay howlgalka ayaa waxay ishaaca ka qaadeen in ay si nabdoon kula wareegeen deegaankaasi kadib markii ay isaga baxeen kooxda al-shabaab kadib markii ay ka warheleen xogta ah ciidanka kusoo wajahan. sidoo kale saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa waxay ku eedeeyeen ururka al-shabaab inay burburiyeen xarumihii isgaarsiinta ee deegaankaasi iyo sidoo kale ceelbiyoodkii ku yaalay halkaasi oo ay dadku ka cabi jireen. xaaladda deegaanka qaayib iyo deegaanada hoostaga ayaa iminka ah mid aad u kacsan, waxaana ciidamada huwanta ah ee isgarabsanaya ay sameynayaan howlgallo amni xaqiijin ah iyagoo deegaanka ka sameeyey howlgal miina baaris ah, balse ilaa hadda lama soo warinin wax dhaqdhaqaaqyo ciidan ah oo kasoo horjeeda oo dhanka al-shabaab ah. gobolka Galgaduud ayaa ka mid ah furmaha dagaalka ee ugu badan oo lagu baacsanayo ururka al-shabaab, waxaana halkaasi ka socda howlgal xoogan oo ay saraakiishu sheegeen inay doonayaan inay ku gaaraan deegaanada ama degmooyinka Xaradheere iyo Ceelbuur oo ka wada tirsan gobolada Galgaduud iyo Mudug, halkaasi oo in muddo ah ka arriminayaan dagaalamayaasha ururka al-shabaab. howlgallo markii hore ka bilowday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan isla markaana ugu horbooday gudoomiyaha gobolkaas Cali Jeyte Cismaan ayaa waxa ay ku fideen qaybo ka mid ah gobolada dalka, waxaana gobolka Galgaduud uu noqday gobolkii labaad oo ay markaa ciidamadu ka sameeyeen iyo dadka deegaanka howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab. inta badan gobolada dalka ayaa waxay ku soo biireen howlgallada iminka ka soconaya qaybo ka mid ah Soomaaliya, kuwaas oo lagu baacsanayo dagaalamayaasha al-shabaab oo in muddo ah deegaanadaasi ka arriminayay. gobolada Shabeellaha Dhexe, Baay iyo Boqol ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha iminka howlgalladu ay ka socdaan, kuwaasi oo ay ciidamada huwanta ah ee isgarabsanaya ay deegaano dhowr ah kala wareegeen dagaalamayaasha ururka al-shabaab. wararkii ugu dambeeyay oo aad xilligan kala socoteen baraheena internetka sida YouTube-ka iyo Facebook-ga halbeega wararka iyo barteena Facebook ee Tixraac wararka xilligan waa naga inta. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo muuqaalka like saar una share garay saaxiibada si uu dad badan u gaaro. mahadsanid.